ama weydiyaha koowaad ee su-aasha soo qoray dhallinyarada had iyo jeer timaha u xiirata si kala sarraysa cibaadadoodu ma ansaxaysaa? su-aasha labaad wuxuu leeyahay saa'ilka soo qoray qofka xubnaha weysada kala dambaysiiya ee intuu qaar maydho kuwa kale dib u dhiga weysada noocaasa xukunkeedu muxuu noqonayaa? su-aasha xigta saa'ilka soo qoray wuxuu leeyahay ma bannaan tahay salaada taraawiixda inaan iswada raaciyo oo aan atixiyaadka intaan ka wada daayay marka ugu dambaysa hal atixiyaad aan la imaad? su-aasha afraad wuxuu leeyahay saa'ilka soo qoray muxuu yahay xukunka salaada qofka ka shakiya tiradeeda ama wax ka mida inuu ka tegey salaaddii markuu dhammeeyey baa wuxuu ka shakiyey inuu wax ka tegey qofkaas salaaddiisu maxay noqonaysaa? fadal sheekh. alxamdu lilaah. qofku hadduu shay gafa ku jiro ama macsiyo ah sida maalan timaha badh la xiirayo oo kale oo soonkii iyo salaaddii uu la imanayo way ka ansaxayaan, laakiin dee mar kastoo uu gef ku jiro ama macsiyo ajrigiisu badan maayo. marka qoordiidka waxaan la idhaha ama jeega xiirka dhanxiirka nebigu uu diiday sala allahu calayhi wasalam, nahyi buu saaray. marka nahyigaasi inuu karaahiye yahay ama xaaraan yahay labadaa midun bay noqonaysaa. sidaa daraaddeed qofka muslimkaa inuu gaalada ku daydo ma aha oo gaaladaasaa u xiirta, laakiin salaaddiisi iyo soomkiisu way iska ansaxayaan, waxaanaynu kula talinaynaa inuu iska daayo. su-aasha labaad ee ah hadduu qofkii xubnihii weysada kala dambaysiiyo way ansaxaysaa, laakiin sidii wanaagsanayd ma aha oo muwaalaadka ama in la isku xidhiidhiyo weysada culimada qayb ka midii waajibaadkay ku daraan, qaarna sunnahay ka dhigaan inaad mar wada dhammayso weysada. kol haddii aad mar wada weysiiso weydeed kala dambaysiiso sidii fiicnayd baad ayaanad yeelin, laakiin weysadii way ansaxaysaa. salaadan taraawiixda iyo salaada habeenkii in loo tukado weeye labalaba, witrigana loo dambaysiiyo siduu rasuulku sala allahu calayhi wasalam xadiidtiisa saxiixa ku caddeeyey: salaatu leyli mathnaa mathnaa xataa idaa khashiya axadukum الصubxa falyuutir calaa macna xadiid. salaada habeenkii waa labalaba, midkiin markuu waagu inuu baryo ka baqdana midha ku soo khatimo. wayse bannaynayaan culimada qayb ka midi inuu israacin karo qof 4 6 isagoo atixiyaad u dambaysiinaya. xadiidkii caaisha saxiixa ah bay daliishanayaan odhan jirtay nebigu waxa uu tukanaya 4 dhaadheer oo qurux badan iyo 4 kale oo qurux badan iyo witriga. marka qaarkood waxay leeyihin 4ta waa la isku xidhiidhinayay, qaarna waxay leeyihin ma waa 4 intuu tukado uu u dhaxaysiinay ku xigsiinaya nasasho 2 iyo 2 kadib yaro nasanayo. labada ta'wiilba way saareen, laakiin sida fadliga badani waxa weeye labalaba, qowlkiisana nebiga ku sugan sala allahu calayhi wasalam. hadduu qofku shakiyo salaada oo uu idhaahdo talow maxaa kaa maqan, ma ruknigaasaa kaa maqan mise waad la timi, waa inuu la yimaado. yaqiintuu ku xisaabtamaya, 3 baad tukatay talow mise 4, 3duu ku xisaabtamaya. talow faatixadii miyaad akhriday mise weli maad akhriyin, wuu akhriyayaa. hadday gaadho heer waswaasa oo ku celcelinteedu ay ku badato buu joojinaya oo soo afjaraya, laakiin markuu mar shakiyo waa inuu ku celiyo si uu shakigii uga baxo yaqiinta u raaco. wallaahu aclam. jasaak allahu khayr sheekh maxamed, ilaahay subxaana wa tacaala ka abaaliyo. su-aalahan 4 ee soo socda waxay ku saabsan yihiin sekada qaybaheedii kala duwanaa, tii laga bixinayey jidhka ama sakaatu fitridii iyo sekadii xoolaha iyo maalka laga bixinayey. su-aasha ugu horeysa ee sekada ku saabsan wuxuu leeyahay saa'ilka soo qoray: sakaatulfitrida ma waxa fiican in lacag lagu bixiyo mise waxa wanaagsan in cunto lagu bixiyo? su-aasha labaad wuxuu leeyahay saa'ilka soo qoray: waxaan leeyahay hanti ka kooban
qalabkan gaadiidka ah ee dhulka lagu qodo mesela cagafyada iyo wax la mid ah sidoo kale baabuur iyo guryo markaa kuwaa sakadoodu sidee noqonaysaa oo loo sakaynayaa su-aasha xigta wuxuu leeyahay saa'ilka soo qoray waxaa jirtay hanti igu jirtay markaa bangiga oo sakagoys ahayd oo lacag ahayd lacagtii baa la iga amaahdo dayn bay ku maqan tahay lacagtaa daynta ku maqan miyaa sake lagu leeyahay su-aasha ugu dambaysa su-aalaha sakada ku saabsan wuxuu leeyahay saa'ilka soo qoray waxaa jira buuhi meheradan magaalada ku leeyahay aniguna safar baan ku maqanahay oo hindiya ayaa covid-19ku igu xabisay buuhi halkaasana maxbuus ku ahay baashii meheradiina xisaab bay u baahan tahay anigunbaa xisaabta la socday oo hawshaa kala wadi karayay buu yidhi xilligii sakada la bixinayana waa sanadkiiba u dhammaado way joogtaa arrintaa iyadana xukunkeedu muxuu noqonayaa sheekh maxamed kusoo dhowow su-aasha hore ah sakaad fidriga ma ku bixin karaa lacag culimada islaamku maya bay u badan yihin waxay dariishanayaan nebiga calayhi salaatu wasalaam oo ku bixin jiray raashin lacag dahaba iyo tucadcadina way taallay way jiraan horeyse iyo dambaysaba culimada qaybaan badnayn oo qaba in lacag lagu bixin karo markaa sida wanaagsani waxa weeye in sidaa nebiga loo bixiyo sunnihiisa la raaco oo innaga xaggeenna marka la eego waa isku mid lacagta iyo raashinku iyo dadka baahan raashinkaabay usii baahan yihiin raashinkaa lagu bixinaya qofkiiba 2 keliya bar baa laga bixinaya sidaasuu caddaynaya xadiidka saxiixa ee cabdillaahi bni cumar uu warinayo su-aasha sheegaysa waxyaabahan lagu shaqaystay qalabkan waaweyn sidee loo sakaynayaa dakhligoodunbaa la sakeeyaa waxaa mustaqalaadka la idhaah waxyaabihii la adeegsanayay sida gaadiidkaasoo kale iyo guryaha la karaynaya dakhligoodu ayaa la sakeeyaa iyaga laftooda lama sakeeyo oo intoo la qiimeeyo la sakayn maayo laakiin waxaa la sakaynayaa lacagta ka soo baxda hadday sake gaadho walibana sanadku u soo wareego hadday sake gaadhi weydo ama sanadka dhexdiisii la cunana waxba sake laguma laha daynta su-aasha saddexaad daynta kaa maqan waad sakaynaysaa waadaan sakada ka bixinaya iyadoo qofkaa lagu leeya u hayo qofkii ka amaahda iyadoo hayaabaad sakaynaysaa haddii uu yahay qof heli karaya oo wixii ogol oo haddaad tidhaa hebelow ii soo celi wuu kuu soo celinayaa waa qof baalqabeenoo wixii haya aan dafirsanayna laakiin hadduu dafirsan yahay ama uu caydhyahoon waxba haysan sakayn maysida wakhtigaad heshuunbaad sakaynaysa waa dayn qariiba iyo dayn baciida la kala idhaahdaa su-aasha afraada sheegaysa in maalkaagii ama dukaankii ama meheradii aada xisaabin lahayd aad ka xaniban tahay sakada wakhtigeediina la gaadhay ama la dhaafo maxaa yeelayaa waad sii bixinaysa intaan xisaabta la gaadhin oo qof baad leedahay dadkii masaakiinta adiga iga wakiilehe lacagta intaa la eg sii bixi lacagaad is leedahay sakadu ka badan mayso marka ha dhowto aada xisaabisana inta kugu hadhay unbaad safaynaysa markaa si aanu masaakiinta iyo dadkii sakada xaq u lahaa xaqoodii uga xandhibmin ee rabadaanta iyo wakhtiyada ay ugu baahanyiin ay u helaan qof wakiilo waxaad tidhaha qofka meheradda ku haya intaasii bixi hadhowna xisaabta wixii kugu hadhaa xisaabe xilmale weeyaan iska safee wallahu aclam jasaaka allahu khayr wbaarak allahu fiik ilaahay subxaana wa tacaala sheekha barakeeyo innagana inagu anfaco su-aalaha soo socdaa oo ilaa 7 su-aalooda qiyaastii waa su-aalo ku saabsan arrimaha bulshada qaarkood waa talooyin sheekh laga codsanayo qaarna waa su-aalo toosa wuxuu leeyahay su-aasha ugu horeysa weydiiyaha soo qoray haddii waaba sida dhacda ee waalidku caruurta qaar ka mida wax siiyo kadibna uu sidaa ku dhinto xoolaha caruurta mid ka mida uu ku gaar yeelay hadhow dhaxalka ma soo gelayaan mise qofkaa la siiyey baa hantiyeeya su-aasha labaad wuxuu leeyahay waana su-aal in badan soo noqnoqoto had iyo jeer sheekha iyo culimada kaleba la weydiiyo waxaa jira jaamacadaha qaar oo hadduu qofku fiigii waxbarashada uu la habsaamo ganaax saara oo lacag ganaaxa dul saara lacagtaa xukunkeedu muxuu yahay su-aasha saddexaad wuxuu leeyahay saa'ilka soo qoray waxaa dhacda inaan
meherada alaabta qiimaha si la igu yidhaha qiimo ka sarreeya aan siiyo oo aan lacag saayida dul dhigo lacagtaa ilama oga mas-uulka meesha lihi xukunkeedu muxuu noqonayaa su-aasha afraad wuxuu leeyahy saa'ilka soo qoray waxaa jira dad dhul iska ooto iska seeraysta dhul caama oo la wada leeyahay si gaara uga faa'iidaysta ama caws iyo wax la mida ka beerta arrintaa iyadana xukunkeedu muxuu yahay su-aasha shanaad saa'ilka soo qoray wuxuu leeyahay alaabbaan qof ka xaday kadibna waan ka dhaartay si aan uga toobad keenaa hawshaasi oo aan uga soo noqdaa su-aasha lixaad maxaad kula talin lahayd sheekh dad badan baa jira oo makhraati been ku shaqaysta oo makhraatiyaal beena fura waa iska tala taasi su-aasha ugu dambaysa wuxuu leeyahay saa'ilka soo qoray xaaskayga meherkeeda dhul aan leeyahay oo sharciyeysan ma ku bixin karaa sheekh maxamed haddaynu su-aasha waxa uu siiyey maxaa laga yeelayaa haddaanu wax wada siinin ee uu qaarun wax siiyo ma fiicna oo sharci ahaan nebigu wuu diiday sala allahu calayhi wasalam ittaquu llaha wacdiluu bayna awlaadikum ilaahay ka cabsado caruurtiina u cadaalad sameeya buu sidii qisadii nucmaan ibnu bashiir iyo aabbihii marka qayb ka mida culimada waxay leeyihin ma ansaxayso qaarna waxay leeyihin hagafabe way ansaxaysaa kol hadduu ilmuhu qaatay dhaxalna noqon maayaan wixii marka intuu noolaa hadduu guddoonsiiyo qofkaasi uu qaatay qofkii baa yeelanaya gefba ha ku dhaco waalidku su-aashan labaad ee ah jaamacaduhu fiigii ay ku lahaayeen ardayga hadduu wakhtigii lagu heshiiye soo bixin waayo qaraamo ma saari karaa iyo ganaax maya fiigan ay ku yeesheen waa dayn daynta qofkii lagu lahaa hadduu bixin waayo waa xaaraan in dulsaar la saaraa waana ribo ribada laftigeeduba waxa weeye qof dayn lacag aad ku leedahood wax dul saarto uun sidai carabtu odhan jireen ataqdii an turbi miyaad bixin doontaa wixii haddaanad bixinayna kordhi xalkuna waxa weeye in la ashkateeyo qofka oo hay-adihii kaaga qaadi lahaa ee garsoorka dee loola tago laakiin in la ganaaxo maaha waa xaaraantaasi su-aasha saddexaad ee odhanayso alaabtii aan iibinayey ee aniga la ii wakiishay wixii ka soo baxa wax ma qaadan karaa maya qofkiiba iska leh qofkii wakiilka aad ka ahay ama aada u shaqaynaysay ayaa wixii iska leh adiguna wixii mushqaayad aad lahayd baad leedahay iyo mushaarki waxaa u daliilay xadiidkii saxiixa ahaa bukhaari ku jiray curwat lbaariq nebigu calayhi salaatu wasalaam diinaar buu u dhiibo wuxuu ihi neef odxiyaa ii soo iibi ninkii lacagtii 2 neef buu ku soo iibiyey markaasuu mid ka mida dib u sii iibiyey diinaarkiiyo neefkii isagoo wada u keenay neefkiina wuu keenay faa'iidana wuu keenay nebigu labadiiba uu ka qaato wuu duceeyey arrintaasi daliil waxay u tahay qofka wax loo iibinayo wixii alaabtiisa ka soo baxee dheeraada ama aan marka horeba la odhanin soo sii isagunbaa iska leh ee kan soo saaray ma laha su-aasha odhanaysa dadkan meelaha iska oodanaya waa arrin dembiya ama xaaraana xooluhu halkay daaqayeen in seera laga dhigo seerahana ilaahay iyo rasuulkuunbaa ayuunbaa samayn karoo xima ama seero cid kale ay yeelan kartaa ma jirto ilaahay baa samaysan karaa addoomihiisa iyo ciddu u faray ee u ogolaado madaxda ah oo seeraha dadka loogu danaynaya marka arrintan dhibka ku haysa baadiyaha ee ummadduna ay isku wada laysa meeshana waa in la banneeyaa oo xooluhu ay daaqaan nebiguna wuxuu tilmaamay sala allahu calayhi wasalam dadku inay wada leeyihiin daaqa iyo biyaha daaqa ilaahay uu soo saaray iyo biyaha uu soo saaree bannaanada ee ku jira haddii uu su-aasha kale qofkaasi uu leeyahay waxbaan xadayo waan ka dhaartay sidaad uga toobad keenaysaa waxa weeye qofkii aada wixiisii qaadatayna u soo celi ilaahayna uga toobadkeen oo go-aanso waxa inaana dib ugu noqonin intaanad safarka aakhiro gelin maanta ayaad jaanis haysataae towbadu siday ku ansaxaysa waa sidaa qofkii ood raali geliso oo wixiisii u celiso iyo ilaahay oo aada u toobad keento dembi dhaaf weydiisato subxaanahu wa tacaala nebiguna markuu arrintaa ka hadlayey
waxa uu qof kasta oo ku qaata naar xoolo aanu lahayn ilaahay jannadana uu ka xaaraantinimeeyaa naartana wuu u waajibiyaa nin baa wuxuu yidhi bal waxaad ka warantaa hadduu shaygaasi yahay wax yar nebigu waxa uhi wa in kaana qadiiban min araak geed cadayba ha ahaado waxaa dhaarta uu ku qaatay geed cadayga lagu cadaydaba ha ahaadee mar hadduu dhaar beena ku qaatay naari ka dhima jannadii ka dhimatay naarunbaa u waajibtay arrinta markhaati beenaalaha nebigu sala allahu calayhi wasalam maalin maalmaha ka mida buu ka warramay akbaru lkabaa'ir dembiyada waaweyn kuwa usii waaweyn gaalnimaduu sheegay waalidka oo caaq lagu noqdaa buu sheegay wuxuu markaa intuu soo saro fadhiistay buuhi alaa wa qowlu zuur 3 jeer ku celceliyey iyo markhaati beenaala war hooy markhaati beenaala ilaa aan ka yaabay buu nebigu ninkii xadiidka warinaya wuxuu laytaw sakat alla bal wuu ku daalaya muu aamus wuu naxayba nebiga calayhi salaatu wasalaam siduu ugu celcelinayay markaa dadka ku shaqaysta markhaati beenaalaha adduun iyo aakhiraba cuqubaa ku dhacaysa intaan aakhiraba la gaadhin cuqubadii adduunyada ugu soo degdegaysa waayo aakhiradiisii wuxuu ku iibsaday adduunyo cid kale qaadanayso su-aashan odhanaysa xaaskaygu meherkii ay igu lahayd dhul ma u siin karaa haddii aad dhulka leedahay haa dhulku haddii uu yahay dhulka sibaa loo yeeshaa sharci ahaana dhul aad leedahay oo cid aydaan isku haysanoo ummadda aanad ka boobinoo xalaala hadduu yahay dee waa xoolo meherkiina waad u qiimayn dhulkaa inta uu ka gooyuunbaad ku wareejin doontaa hadday iyadu ogoshahay oo aad ku heshiisaan meherka ruuxa dumarka abaale waa xaqeedii way bedbedelan kartaa lacag bay ka dhigi kartaa dahab bay u rogan kartaa dhul bay ka dhigan kartaa haddaa isla ogolaateen dhulkana aada leedahay haa waad u siin kartaa meher wallaahu aclam sheekh maxamed ilaahi subxaana wa tacaala ku barakeeyo intaynaan soo gebagabayn su-aasha shanaad waxaa ka muuqda saa'ilku inuu laba dembi ku dhacay mid waa inuu xatooyo sameeyey midna waa inuu dhaartay marka tuugadii hadduu ka toobad keeno dhaartii iyada waxaa sari ma ka dhalanaysaa ma raadiyo kafaaro gud iyo wax lamida miyaa laga rabaa mise toobadun bay raacaysaa dhaartaasi waxaa la idhaha alyamiin alkhamuus baa la idhaha dhaarta midina mustaqbalkay la xidhiidhaa soo socota oo waxaa laga bixiyaa hadduu qofku ku gafo kafaara gud dhaarta laakiin wixii hore tegey ka warramaysa ama alyamiin alkhamuus iyada waa inuu ka toobad keeno wallaahu aclam ilaahi subxaana wa tacaala sheekhaan barakeeyo miisaanka xasanaadkana u saaro aad iyo aad baynu ugu mahadnaqaynaa idinkana ilaahi subxaana wa tacaala iyo dhammaanteen baa inagu anfaco